waxaan runtii mar labaad iyo mar saddexaad ba hambalyeynaya oo u mahad celinaya hablaha qaaliga hadday kulmiye qaali ku ahaayeen wadanina qaali bay ku yihiin insha allahu tacaala ku noqon doonaan hablihii ahaa mishiinkii runtii kulmiye rogayey mishiinkii annaga na taageerayey na dhisayey runtii aanu ku dhaadin jiray inay ahaayeen baan baraka furayaa aad iyo aad baanu ugu boholyownay ugu baahnayn aaminsanahayn halkan inay dhaqaajin doonaan iyagoo iskaashanaya hablaha kale horbuu joogay wadani inay dhaqaajin doonaan shalay baan halkan ka hadlayey hablihii axmed dhagax iyo doorka runtii hablaha looga baahan yahay waxaan isleeyahay runtii haweenku mar walba waxay ku leeyihiin qarannimada iyo dalka horumarkiisa iyo dhismaha iyo ilaa qoys laga soo bilaabo waxay ku leeyihiin kaalinta ugu muhiimsan la'aantoodna yacni suurtagal maaha in lagu guulaystaa aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin cidda codaysa codka bixisa waa iyaga cidda lagu tiirsan yahay ee shaqada wadda waa iyaga aad iyo aad baan runtii idinku boholyownay oo dee markaa si kale u dhigana qoladayadii kulmiye ka timid cayaartii intii isla garanaysay inaannu hellaa oo aynu jaantiiya jiibta isla hellaa waxaan isleeyahay guul weyn baynu wada dhalinayna aad baa umahadsantihiin aad iyo aad baa umahadsantihiin waa talabaade giraantii aan sheegay aynu dhisaynay xagga ragga iyo xagga dumarka iyo xagga dalka dhammaantii giraan baynu ka wada dhigaynaa waynu isku wada xidhayna oo dad isku wada xidhan oo meel ka wada shidaal qaata oo qaranka u wada adeega oo hannaan iyo haybad iyo himilo qaran leh ayaynu abuuraynaa haddii allaha waddan ogaado ma aha sheegaan iyo isugoodo iyo laba ma aha waa qaran isku xidhan oo giraana oo isku wada xidhan oo isku wada kalsoon oo aan qolana qariib dareemayn qolana dareemayn inay iyagu gaar wax u qaateen aad iyo aad baan hablaha ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay waanu runtii idin soo dhawaynaynaa halka haddaan idinka soo horeynayna guri runtii laydinku soo dhawaynayo oo laydinka baahan yahay ayaa halkan wadanina ay tahay aad baa loo baahan yahay xuduudiinna iyo caqligiinnaba waa loo baahan yahay diyaar baa laydin yahay insha allahu tacaala waxaana inagoo isku duuban qaranka gaadhsiin doonaa inuu guulaysto oo qarankeenna aynu ka dhabayno himilada uu leeyahay waxaan xusayaa sidii halka laga xusay abaarta oo shalayna runtii laga hadlay maalin walbana laga hadlo waxaa jirta wax lagu dhawaaqay in la sameeyo hannaan dhaqaalo ururin oo xisbiga u gaara in la sameeyo habeenkii lagaga dhawaaqay guuleed akoon baa loo sameeyey sanduuq waxaan leenahay dhammaantiin sanduuqa wax ku soo biiriya xaflad walba yacni inay noqoto meel qaadhaanka looga ururiyo baynu doonaynaa oo ay isku qabsoomaan xafladdii qabashadeedii oo dadku hadduu ina doonaya albaabada ka xidhan mayno laakiinse waxaynu doonaynaa inaynu labada iswaafajinno dadkii oo xafladdii loo qabto oo xisbigii lagu soo horo iyo dadkii dhibaataysnaa ee dhibaatadu haysatay oo loo gargaaro loo gurmado oo lagu guro oo xafladuhu noqdaan isu imaatinkii lagu ururinayo qaadhaan ururinta xaflad waliba inay ka jawaabto qaadhaan ururinta ayaynu doonaynaa marka waxaan leenahay dadkeenna baahan ee dhibaataysan ee abaartu ku habsatay aanu gurmanno hala ururiyo akoonka insha allahu tacaala ee loo qoondayana wixii kusoo diraya ha ku soo diraan wixii kalena hala dhex maro hala ururiyo abaartaynu insha allahu tacaala wada gurmanayna waxaan ugu dambaysiinaya hadalkii maalintii dhaweydaan berbere ka lahaaye ayaan ku celinayaa ee ahaa kulmiyaanu ka nimiyo kulmiye waxaan aaminsanahay runtii waa kan muruqyadii ugu waaweynaa maraya ee haweenku waxaa maalintii dhaweydaan sheegay 4 qurun baa isugu hadhaya dadka kale insha allahu tacaala waddani way isugu iman doonta wixii door bidana u cud u diidi weeye garan waaya kulmiye kolley ismale waa lagu raagayahay wixii garan waayana u cud lafteedu waa xisbi kaba mucaaradoo u diidi weeye laakiin se 4 qolo isugu hadhaya maalintii dhaweyd baan sheegayo waan ku celinaya 4 qolo isugu hadhaya waa qolo odayaalahoo muxtarimahoo isqaadi kari waayey oo le waarnimayo bal waxaanu sii eeganaynaa laacaas intaasaanu sii eegaynaayo waa odayaal wax ixtiraamayo runtii sharaf iyo karaamay leeyihin qolada labaad waa qolo
laga yaabo in qabyaaladu ay ka tiro badatayo qabyaalada mooyaan wax kale halkii inta qabyaalada wax ku eegayo qofkaan waxaanu leenahay ilaahay ka bogsiyo laakiin si qarani baan waxba ku eegaynin kaasuna waxa laga yaabaa xogaaga qabyaalada ayaa ku dhajinaysa qolada saddexaad waa waxoogaa qaali oo lacag badan ku joogto maalin baa marka xaflad inta oo kala la qabto afar qof baa la siiyaa waxa laga yaabaa afar halka fadhiya inta lacag la siiyo la yiraahdo wadanaan ka baxnay dhaha afar taas oo lacag badan ku jooga oo afar taas oo mid walba lacag qaali ku joogo ayaa iyaguna group ka mid noqon doona groupka isugu haraya groupka saddexaadna waa group dan leeyo ama shaqaale dawladeed ha noqdaan ama ganacsato ha noqdaan waa group dan leeyo muraad ka xidhan yahayo iyagana muraadkooda Allah u fududeeyo iyaguna marka u dambaysa way ugu soo diireen oo u diiday laakiin ismarihi kulmiyey minka wax tala qaran iyo arrin qaran u danaynaya way isugu hadayaan afartaas ay isugu hadayo waxaan isleeyahay maalin dhowday waxa ka warrami doona madaxda ka warrami doonto iyaga laftooda markay cid ay aaminaan ba waayaan intaada warto kana miyuu sii socdaa warkana miyuu sii socdaa waa la sheegay nin ilaalin jiray jeelka madheera nin ilaalin jiray waa laga sheekeeyo wuxuu gaar ku kayn jiray waxa ay jeeshiyo madax buu ahaa kadibna maalinta mid baa lagu soo xidha geel jira oo markuu yimaado uu sidaa u eegaayo kadibna booduu qaaday xagga shooga booda marba midbaa ka booda maalintii dambe uu arkay gruub la keenay oo geel jirayaaloo la soo xidhayoo sidaa u egeegaya jeelka marka isagoo maalin walba ay jeelka ka dhacaan oo ka boodaan waa la ganaaxaayada askarta waa taqaaniino ninkii sarkaalka ah waa la ganaaxaayo ganaax mu mutaayo dee wuxuu sii daayey dad xidhan oo jeel ku jiruu sii daayey kadibna maalintii dambu sidaa u eegay mid baa la daymoonay bur buu qaadayo wuu ku dhuftayo aabaha la kuday imaanso jeelka imaanso jeelka waxaan ka baqaya imakay qaar badan qolada kulmiyaadaan aabaha la kuday imaanso kulmiye